السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد الجزيرة تكنولوجي انستيتيوت بوقي أفراد مايكروسوفت أكسس يعني بلابنا مانت waxaad bilaabaysaa ama aad soo furanaysaa start button-kaagii waxaad ku qoraysaa start button-kii markaad ku jiido waxaad ku qoraysaa access-kii away waxaan ku qoray access kadibna access waa kan iga soo baxay cake baan siinayaa access-kii waa la ii furay access-kii marka la ii furo dhowr nooc baan u kala qaadi doonaa waxaan u kala qaadayaa qaybahan online tablet-ku haddaan ku horeeyo iyaga waxa weeye sidaad ula soo degi lahayd maxay contactiyo samaysan asset contact issues oo waraaqo samaysan oo adigu aad wax ku dhex qoranayso ood kala soo degayso online-ka for example kuwan hoose oo kale tabs maxaa ku qoran tasks faculty students waa maxaa studentsku markaa waa maxay haddaan for example kaa isku dayna inaan soo dhowlo gareyno waayo haddaan isku dayo hadda kan inaan la soo dego students ay ku qoran tahay waan ku jiidayaa kadibna field name-ka waxaa igu qoran maxay students baa igu qoran isoo deji baan leeyahay okay wakaa u wadaa hadda sooma wixii isoo dejinaya oo waraaqo samaysan kadibna anigu aan wax ku dhex qoranayo waayahay okay kuwani tablet-kan intaan kaga tagayaga xagga sare markaa u noqonaya halkan waxaa ku taalo wax la yiraahdo blank page okay ama blank database waxa weeye marka saad qaab cusub u samaysan lahayd database new oo adigu aad hadda abuurayso okay kan kalena ee xaggan ku yaalana waa kuwii hore soo open gareyn lahayd waxaan ku arkaynaa video-ga labaad insha Allah waxaan ku jiidayaa blank-gaygii kadib halkan ay ku qoran tahay field name-ka waa halka magaca loo bixinayo oo halkan khaanada ay ku taalo wax weeye halka hadhow toona marka aad save gareyso lagu dhigi doono haddaan hadda desktop-ka doorto oon magac u sii bixsado wixii dhanba halka laga dhigaya hadda uu sheegaya okay marka meesha lagu dhigi doonaa waa halkee waa documentiga haddaan ka idhaahdo desktop-ka ii dhig desktop-kan buu ii dhigi doonaa halka okay idhaahdo aan ku waxaysto desktop-kayga markaa ku waxaysanayaa aan okay leeyahay xaggana waxaa lagu yidhi magacii shirkadaada u bixi maanta waxaynu arkaynaa maxay symbol magac ugu qoran lahayn halkan okay waxaan leeyahay markaa maxaan bixiyaa registration kadibna create baan leeyahay okay waa kan waa la ii furay qaabkii aad doonayay kuwaan sare xaggaynu ku aragnay buugtii hore aynu soo aragnay magacyadooda home-ka create external data maxay database tools iyo data sheet okay qaab kale ay noogu soo biiri doono hadda ka maqan oo ay ka mid yihiin data design baa ka mid ah oo markaynu hadda gaadhno inoo soo dhigi doono hadhow toole home-kaygii haddaan for example ku noqdo waxyaabahan ka isticmaali doono home-ka waxaa ka mid ah kow inaan fartii qurxiyo aan fartii qaabaysto aan fartii aan dhinacaan doonayo aan geysto haddaan dhexda doonayo haddaan lefti doonayo iyo haddaan right doonayo inaan u samaysto maxay inaan shax u samaysto grade line-kayga aan samaysto waxaasoo dhan waxaa gooni ku ahaan doona waa home-ka shaqadeena ugu badanna waxay ka socon doontaa create okay create bay ka socon doontaa markastoo aad soo create garaysto oo soo furato wuxuu kuu siin doonaa table isagu samaystay table-kana waad iska xidhi doontaa marka aan table-ka xidhno shaqadeena ugu badan create baynu ka wadi doonaaye table tablet SharePoint list iyo table intaa waxaa la isku yidhahdaa tables okay form split form multiply item haye blank form more form iyo design form intaasina maxay isku yihiin form space ku yihiin report labels blank report waysaar report design intaasina waxay isku yihiin report kuwan kalena waa adreska kale oo query-gii iyo design query-gii iyo macro-gii kuwaana waynu arki doonaa qaabka iyagana loo isticmaalo okay kan kale haddaan ku xijisiiyo markaa kuwan waxa weeye saad kusoo dhex ridan lahayd access-kaagii excel hore kugu samaysnaa for example okay saad u dhex keensan lahayd baynu ku arki doonaa isagana ama import ugu samayn lahayd access-kii aad dibadda hadhow toole ugu diri lahayd qaabkan oo kale markuu inoo soo saaray hadhow toole waayahay haddaan ku dambeysay marka qaybtan database ay ku qoran tahay iyadana waxaynu ka isticmaali doonaa qaybo aad u fara badan waxaan kusoo noqdo marka qaybteedii home-ka waxaan sheegay hadda kuwan oo dhan inaan active ahayn macnaha ayna shaqaynayn sababta inuu shaqaynayn waxa weeye halkan wax ii yaalla ma jiro okay waayahay waxaad ka soo bilaabaysaa shaqada create
table design. Okay, halkaan name u bixsanaynaa name. Waxaa jira halkan waa field name. Data type-kan access-ka mar walba wuxuu ku xidhayaa inta meelood ku jira ama inta shay ku jira mid kamid ah inaad doorato oo aanad soo dooran karin shay kale oo ka baxsan. For example, inta dooranaysa waa intaas weeye. Wax ka baxsan ma soo gali kartid. Waxa ka baxsan oo kaliya mid aynu arki doono look up la yiraahdo. Look up kuna text weyn naga noo ahaan doona oo inagu waa look up gareyn doona. Okay, halkaan aad ka save gareynaysaa markasta oo aad doonayso inaad table-kaaga save gareyso. Yes baad leedahay. Kadibna halkaan aad magac u bixinaysaa mar walba diiwaan gelin aan idhaahdo markaa. Okay, su'aashan uu weydiinayaa markasta uu weydiin doonaa wax save gareysanayo. There is no primary key. Miyaad u baahan tahay wax ID number ah? ID number waxa weeye in laga sarreysiyo kan ID number isaga ka sarreeya oo xagga sare ka mari doona. Okay, yes na waad oran kartaa, no na waad oran kartaa. Kuwa aan no oran karin way jiraan oo waynu arki doonaa kuwaas. Inaga yes noo dhahada. Halkan wuxuu noo sameeyay table. Table-kan haddaynu hadda dhex galno aynu furno muxuu ka kooban yahay kaliya ID oo kii yes aan soo nidhi iyo table ayuu ka kooban yahay. Waa yahay sidoo save gareysanaysaa markaa save gareynta office button-kii baad ku jiidaysaa save as laguma dhufanayo ee waa la dul istaagayaa. Marka aad dul istaagto kadib waxaad dooranaysaa access 2007 database. Qaabkan ayaad u dooran doontaa datadaadii si aad uga dhigto mid hadhow toole ku sii taagan. oo kadib halkaan aad magaciisa u bixsanaysaa leedahay diiwaan gelin hadda registration inoogu qoran yahay save baad leedahay hadhow tolo markaad xidho qaabkaas ayaad u soo furan kartaa